Waxaan wanaagsan asxaabta halka nagala socoto oo aan champion Somali Sports hadahan kale waxaan idin soo gudbinaa barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadan doonaa suuqa kala iibsiga saxaafaddu saaka waxay ka qoreen dhanka kale waxaan soo qaadan doonaa kulamadii xalay la ciyaaray horyaalka qaramada qaaradda Afrika lana asxaabta si aad noola socotaan channelka subscribe noo saara xulka qaranka Cameroon ayaa noqday xulkii koobaad iska xaadiriyay wareegga afardhamaadka ee koobka qaramada qaaradda Afrika xulka qaranka Cameroon ayaa iska xaadiriyay wareegga afardhamaadka kadib markii ay guul raaxo leh ka gaadheen xulka qaranka Gambia oo ay laba gool oo jawaab la'aan ah ay kaga dul talaabsadeen waxaana labada gool akoonkiisa kala soo baxay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Cameroon ee Kambi 7 daqiiqo gudahood laba gool ugu dhaliyay qaybtii dambe xulka qaranka Cameroon ayaa labadaas gool ugu wareegay afardhamaadka xulka qaranka Burkina Faso ayaa hal iyo waxba iskaga soo xaadiriyay wareegga afardhamaadka oo ay ku soo reebeen xulka Tunisia xulka Burkina Faso ayaa goolka madiga dhaliyay dhamaadkii qaybtii hore balse xulka Tunisia oo ku hayay goolka Burkina Faso weerar iyo dardar joogta wax gool ah lama imanin balse Burkina Faso ayaa daqiiqadii 82aad ayaa kaarka cas loo taagay ciyaaryahankeeda mid kamid ah ciyaartuna waxay ku soo idlaatay hal iyo waxba ay Burkina Faso iskaga xaadirisay wareegga afardhamaadka Salah iyo Traoré ayaa Masar u soo saaray wareegga afardhamaadka Masar ayaa 2-1 ku xaaqday kooxda xulka qaranka Morocco Masar ayaa iska soo xaadirisay wareegga afardhamaadka dhanka kale xulka qaranka Senegal ayaa guul raaxo leh ka gaadhay xulka Guinea Bissau 3-1 xulka Senegal ayaa iska xaadiriyay wareegga afardhamaadka ee koobka qaramada qaaradda Afrika dhanka kale su'aashu Masar iyo Morocco way soo dhaaftay semi-finalka labada xul ee ugu koobka badan koobka qaramada qaaradda Afrika waa Masar iyo Cameroon waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka ku yaala caasimadda Yaoundé Masar iyo Cameroon ayaa ah labada xul ugu koobka badan koobka qaramada qaaradda Afrika ciyaartan ayaa noqon doonta ciyaarta ugu xamaasadda badan koobka qaramada qaaradda Afrika soo qaadan wararka suuqa kala iibsiga kale kooxda Barcelona ayaa heshiis amaah kula soo wareegtay ciyaaryahanka Adama Traoré kaasoo si amaah ugula soo wareegtay kooxda Wolves waxaana kooxda Barcelona haysataa dooq iibsi oo ku dhow 30 milyan Adama Traoré ayaa tijaabada caafimaadka u maray kooxda Barcelona shalay toole Barcelona ayaa wali suuqa kala iibsiga si aadaha ugu jirta isagoo tababare Xavi wado duba habeen uu ku wado kooxda Barcelona wararkeena kale suuqa kala iibsiga kooxda Liverpool ayaa soo gabagabaysay saxiixa Luis Diaz oo tijaabada caafimaadka u maray kooxda Liverpool ayaa bixin doonta 40 milyan iyo 20 milyan oo ku xidhnaan doona qaab ciyaareedkiisa kooxda Liverpool ayuu noqon doonaa heshiiskani kii koobaad ay sameeyso bishan January wararka suuqa kala iibsiga ciyaaryahankii kuba fadhiistay kubadda cagta ee Christian Eriksen ayaa waxa la xaqiijiyay inuu ku soo biiray kooxda Brentford Christian Eriksen ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay heshiiskiisa goor dhaweyd Aubameyang wuxuu ku sugan yahay magaalada Barcelona wuxuu heshiis buuxa la galay kooxda Barcelona si amaah Aubameyang ayaa waxay isku dhaceen tababaraha kooxda Arsenal kaasoo in badan dibad joog ahaa balse hadda wuxuu tagay magaalada Barcelona waxa la sheegay kooxda Barcelona inuu heshiis garad ah uu la galay waxa kaliya xidhan harsan in kooxda Barcelona xaqiijiso dhanka kale kooxda Arsenal ayaa durbaba ogolaatay David ayaa si amaah ugu biiray kooxda Everton waxaana uu kula midoobi doonaa tababaraha cusub Frank Lampard Van de Beek ayaa dhameystiray tijaabada caafimaadka dhanka kale kooxda Everton ayaa xaqiijisay tababaraheeda cusub Frank Lampard inuu yahay tababaraha cusub Frank Lampard ayaa saxeexay ilaa 2024 adan wararkeena kale suuqa kala iibsiga kooxda dhawaan la wareegay mulkiilayaasha Carabta Newcastle United ayaa la wareegtay ciyaaryahankii ka doonayay Olympique Lyon Bruno Guimaraes ciyaaryahanka reer Brazil ayaa kooxda Newcastle waxay ka bixisay 40 milyan heshiiskiisa ayaa la soo gabagabeeyay maalinkii shalay toolahayd Newcastle ayaa wada duba hambadeen aad u ballaaran waxaanu ku soo afbeeranaa barnaamijkeena ciyaaraha aynu maanta ku soo qaada dhignay kulamadii xalay la ciyaaray iyo wararkii u dambeeyay suuqa kala iibsiga ee maanta waxay saxaafadu ka qoreen